kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeena caawa waxyaabaha aynu ku soo qaadi doonno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee wargeysyadu ay qorayaan haatan. Waxyaabaha aynu eegi doonana waxaa qayb ka ah Lionel Messi oo go'aan rasmi ah ka gaaray mustaqbalkiisa kooxda reer France ee Paris Saint-Germain. Barcelona oo xaqiijisay howlgal ay kooxda Real Madrid kaga soo afduubanayso daafaca ay doonaysay Antonio Rudiger. Aabaha dhalay Frenkie de Jong oo sharaxay sababta uusan wiilkiisu ugu ciyaari doonin kooxda Manchester United. Xidigii hore ee kooxaha Arsenal iyo Barcelona Alex Song oo ku guuleystay horyaalkiisii labaad ee Djibouti Premier League. Kooxda Juventus oo heshiis ay ku doonayso hordhigtay Angel Di Maria. Ilkay Gundogan oo magacaabay horyaalka uu ka ciyaari doono marka uu ka tago kooxda Manchester City. Waxyaabaha kale aan eegi doono waxaa ka mid ah sababtii ay Manchester United ku diiday saxiixa Thiago Alcantara 9 sano ka hor oo ka yaabin doona. Everton oo dacwad ka gudbisay garsoorayaasha kulankii ay Liverpool la ciyaareen Axadii. Xidig ka tirsan kooxda Barcelona oo dhaawac ku maqnaanaya inta ka harsan xilli ciyaareedkan iyo mid kale oo kooxdaasi ka mid ah oo qandaraas cusub qalinka ugu duugi doona kooxda ka arrimisa Granco Camp Nou horaanta toddobaadka soo aadan iyo Barca oo badri la'aan aan guul gaari karin. Waxyaabahaas ayaynu soo qaadi doonaa daqiiqadaha soo aadan balse inta aanan gudagelin muuqaalkan waxaan idinka codsanaynaa inaad rukumataan oo aad follow dhahdaan barteena Facebooka sidoo kalena aad subscribe saartaan barteena YouTube-ka ee Haruun Khasaaro isla markaana aad taabataan badhanka like si aad inoo dhiirigelisaan. Mahadsanidin. Markana warkii oo faahfaahsan. Waxaan wararkeena ka bilaabi doonaa Lionel Messi oo go'aan rasmi ah ka qaatay mustaqbalkiisa kooxda PSG. Helenka Sky Sport ayaa goordhow baahiyay in Lionel Messi uu go'aan ku gaaray in uu hal xilli ciyaareed oo kale sii joogo kooxda Paris Saint-Germain maadaama ay PSG diyaar u tahay inay dhisto kooxda isla markaana ay keento tababaro cusub. Inkastoo ay ku guuleysteen horyaalka Faransiiska Sabtidii iyadoo 4 kulan ay ka harsan tahay xilli ciyaareedka, haddana kooxda PSG ayaa ka fiirsanaysa mustaqbalka tababare Mauricio Pochettino iyo agaasimaha sportiga ee Leonardo sida uu warinaya Sky Sport. Milkiilayaasha kooxda ayaan weli ku qanacsanayn qaab ciyaareedka naadiga ee tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League iyagoo markaasi ku soo haray xilli ciyaareedkan wareegga 16 markaas oo ay soo reebtay kooxda reer Spain ee Real Madrid. PSG ayaa mar kale fashil kala hoyatay tartanka UEFA Champions League inkastoo ay markaasi haystaan 3 weeraryahan ee laga baqo ee kala ah Lionel Messi, Neymar Jr iyo Kylian Mbappe. Lionel Messi ayaa PSG kaga soo biiray Barcelona xagaagii la soo dhaafay isagoo rajo ka qabay inuu u tartamo tartanka UEFA Champions League inkastoo uu fahamsanaa in ay adkaan doonto in uu koobka ku qaado garoonka Parc des Princes xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee kooxda. Waxaana weli ka go'an in uu PSG ku hogaamiyo koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League waana sababta uu u go'aansaday inuu ugu yaraan hal xilli ciyaareed oo kale la sii joogo naadiga. Kylian Mbappe ayaa qandaraaskiisa waxa uu dhacayaa xagaagan isagoo wada hadal kula jira Real Madrid halka PSG ay u furan tahay inay markaasi fasaxda Neymar taasoo keenaysa in kooxda reer France ay markaa dib u dhis weyn ku sameynayso xagaagan safkeeda. Waxaana sidoo kale ay keeni doonaan tababaro cusub oo ka faa'iideysta tayada Lionel Messi. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay howlgal ay Real Madrid kaga afduubanayso daafaca ay doonaysay Antonio Rudiger. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in ay wada hadallo kula jirto wakiilka daafaca Chelsea Antonio Rudiger oo ay doonayso inay ka soo afduubato Real Madrid oo la sheegay inay heshiis buuxa la gaartay xidigan keliyana ay ka harsan yihiin heshiiska in labada dhinac ay saxiixaan. Maalin kadib markii tababare Thomas Tuchel uu sheegay in Antonio Rudiger uu ka tagayay Chelsea dhamaadka xilli ciyaareedkan isla markaana ay kooxdiisa markaa ka xirmeen albaabadii rajada ee ay ku sii haysan lahaayeen 29 sano jirkan waxaa soo baxay in kooxda reer Spain ee ka dhisan caasimadda dalkaasi ee Real Madrid ay markiiba qaadatay tallaabooyin ay markaa ku xaqiijinayso in ay daafacan reer Jarmal gacanta ku dhigto. kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ayaa hadalhayntooda Antonio Rudiger muddooyinkii dambe ay taagnayd laakiin agaasimaha kooxda Barcelona ninka la yiraahdo Mathieu Alemany ayaa markaasi xaqiijiyay isaguna inay la hadleen Saif Robi oo ah wakiilka Antonio Rudiger. Real Madrid ayaa la sheegay inay heshiis 4 sanadood ah la gaartay Antonio Rudiger oo markaa uu qalinka ku duugi doono heshiiskaasi bisha May kaasoo uu ku qaadan doono lacag gaaraysa ilaa 10 milyan oo euro oo mushahar ah sanadkii. Sidaas oo ay tahay waxaa markaasi warbaahinta la hadlay Alemany oo yiri
waxaanu la kulannay wakiilka Rudiger laakiin kama aanan wada hadal xaaladaas haddii uu Real Madrid tagayo. Wakiiladu waxay matalaan in ka badan hal ciyaartooy. Elemani waxaa markaasi uu diiday inuu si gaar ah uga hadlo Rudiger iyo qaabka ay kooxdiisu isugu dayeyso in ay uga hor qaadato Real Madrid. Hase yeeshee waxa uu qiray inuu jiro wada hadalka ay la yeesheen wakiilkiisa. Rudiger ayaa xilli ciyaareedkan ka mid ahaa xidigaha ugu wanaagsan ee Chelsea waxaana uu saftay 47 kulan tartamada oo dhan, halka intii uu joogay guud ahaan kooxda reer London ee Chelsea uu dhammaan u ciyaaray 196 kulan. Dhinaca kalena aabbaha dhalay Frenkie de Jong ayaa sharaxay sababta aanu wiilkiisu ugu ciyaari doonin kooxda kubadda cagta Manchester United. Aabbaha dhalay xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong ayaa ku wargeliyay Manchester United inaanu marnaba wiilkiisu tagi doonin garoonka Old Trafford oo uusan u ciyaari doonin. Inkastoo tababaraha cusub ee Manchester United Erik ten Hag uu kubad sameeyahan ku darsaday liiska xidigaha uu dib markaa ugu dhisay naadiga Red Devils. Erik ten Hag ayaa la sheegay in uu bartilmaameedkiisa koowaad ka dhiganayo Frenkie de Jong oo uu horey markaasi ugu soo tababaray naadiga Ajax, isla markaana ay xiriir fiican leeyihiin. Laakiin sanadkii 2019 ay Barcelona kaga iibsatay lacag gaaraysa 75 milyan oo euro. Barcelona oo dhibaatooyin dhaqaale ay ku habsadeen ayaa xagaagii fasaxday darsin ciyaartooy ah oo ku jiro Lionel Messi, waxaana qadka dhexe ay iska garab ciyaarsiisay Frenkie de Jong iyo Sergio Busquets. Hase yeeshee waxaa haddana u soo baxay Gavi iyo Pedri oo markaasi kala doorashooyin fiican siinaya tababare Xavi Hernandez, iyadoo sidoo kalena ay jiraan warar sheegaya in kooxdani ay si xor ah ula soo seexan doonto xidiga qadka dhexe uga ciyaara AC Milan ee Frankie Case. Maadaama ciyaartooy badan oo qad dhexe ah ay haysato Barcelona, waxaa jirta suurtagalnimo ah in ay markaasi ogolaan karaan iibka Frenkie de Jong, waana sababta tababare Erik ten Hag bartilmaameedkiisa uga dhiganayo xidigan reer Holland. Laakiin aabbaha dhalay Frenkie de Jong ayaa wareysi siiyey wargeyska Algemeen Dagblad oo markaa ka soo baxa wadanka Netherlands ama Holland, waxaana uu sheegay in wiilkiisu uusan ka ciyaari doonin garoonka Old Trafford, isagoo mar uu arrintaasi sharaxayana yiri: mar waliba cimilo xun ayaa ka jira halkaas, dabcan waana arrin ku saabsan kubadda cagta, wax dhib ahna kuma jirto, laakiin ilama ahan inuu tegayo sanadahan. Mar la weydiiyey in duruufta adag ee dhaqaale ee ka jirta Barcelona ay kalifi karaan in Frenkie de Jong la iibiyo oo uu tago Manchester United, waxa uu aabbaha dhalay laacibkan ku jawaabay: dabcan waan ogahay in Barcelona ay u baahan tahay lacag, isla markaana uu caawinayo Frenkie haddii dalab weyn ay markaasi ku helaan, laakiin ilama ahan intaasi ay si degdeg ah ku dhacayso, inkasta oo 5 kooxood ee ugu waaweyn Yurub ay dhammaantood soo wacayeen. Dhinaca kalena ciyaaryahankii hore ee kooxaha Arsenal iyo Barcelona Alex Song ayaa xilli ciyaareedkiisii labaad oo xiriir ah ku guuleysanaya horyaalka Djibouti Premier League. Xidigii hore ee kooxaha Arsenal iyo Barcelona Alex Song ayaa xilli ciyaareedkiisii labaad oo xiriir ah waxaa markaasi uu ku guuleysanayaa horyaalka Djibouti Premier League ee laga dhigay dalkaasi Djibouti, isagoo la qaaday kooxda Arta Sola 7. Laacibka qadka dhexe ee reer Cameroon oo weli markaa da'diisu ay tahay 34 sano jir ayaa markaa koobab iyo abaalmarino ka guranaya bariga Afrika. Xidigan oo qadka dhexe uga soo ciyaaray kooxaha Arsenal iyo Barcelona, Alex Song ayaa markaasi ka soo dhaqaaqay qaaradda Yurub waxaana uu soo aaday Afrika, halkaas oo kaga ciyaaro kooxda Arta Sola 7, isagoo sanadkan 2022 mar kale koob kale gacanta ku dhigay lana hantay horyaalka dalkaasi laga dhigay heerka koowaad kooxda Arta Sola 7. Alex Song ayaa markaa ka soo dhaqaaqay bishii November ee 2020 kooxda reer Swiss ee la yiraahdo Sion, markii kooxdaasi ay sheegtay inay u baahan yihiin inuu mushaarkiisa dhimo si uu kooxda ugu soo ciyaaro, laakiin waa uu ku gacan seeray waxaana uu ku biiray kooxda Arta Sola 7 ee ka dhisan wadanka Djibouti, halkaasoo horyaalkiisii labaad oo xiriir ah uu la qaadayo kooxdaas. Xidigan qadka dhexe ka ciyaara ayaa 49 kulan u soo ciyaaray xulkiisa qaranka Cameroon, sidoo kalena 204 kulan u soo dheelay Arsenal 7 sanadood oo uu ku qaatay halkaas, waxaana uu sidoo kale waqti ku bixiyay kooxaha ay ku jiraan Barcelona, Charlton Athletic, West Ham United iyo Robin Kasan. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Juventus ee wadanka Talyaaniga ayaa doonaysa inay la wareegto xidiga kooxda PSG ee Angel Di Maria. Kooxda marwada duqda ah ayaa doonaysa in ay Di Maria markaa ka dejiso magaalada Turin oo ay ka dhisan tahay, waxaana ay u soo bandhigeen dalab heshiis 1 sano oo ay ku qaadanayaan iyagoo doonaya inay weliba beeca xorta ah kula wareegaan.
xidigan reer Argentin ayaa heshiiskiisa kooxda PSG uu gabagabo ku dhow yahay mana muuqato in ay heshiiska u cusboonaysiin doonaan taasoo u fududeynaysa Juve in ay markaa gacanta ku dhigaan xidiga reer Argentin ee Angel Di Maria. Xidiga qadka dhexe uga ciyaara Manchester City ee Ilkay Gundogan ayaa markaasi magacaabay halka uu ka fikirayo inuu ka ciyaaro marka uu dhamaado qandaraaska uu kula jiro kooxda Sky Blue xagaaga dambe. Manchester City ayaa weli wax wada xaajood heshiis kordhin ah la furin Ilkay Gundogan waxaana qandaraaskiisu uu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedka dambe ama bisha June ee sanadka 2023 laakiin labada dhinacba waa ay degan yihiin waxaana ay muujiyeen inay isku faraxsan yihiin. Si kastaba ha ahaatee Gundogan oo ah kabtanka labaad ee kooxda Manchester City isla markaana xagaagan la wareegi doona kabtanimada buuxda ee kooxda Manchester City kadib marka uu kooxda ka taga Fernandinho ayaa waxa uu sheegay inuu ka fikirayo halkii uu u wareegi lahaa marka uu ka tago Manchester City waxaana uu kala dooranayaa laba horyaal oo uu tibaaxay inay yihiin kuwa uu doonayo inuu tijaabiyo ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisan. 31 sano jirkan ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay inay ka go'an tahay in uu sii joogo Manchester City laakiin haddana uu waqti horeba bilaabay in uu ka fikiro halka uu ka ciyaari doono kadib garoonka Etihad Stadium waxaana uu yiri waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro Turkiga oo ay waalidiintaydu ka soo jeedaan waanan xiiseynayaa waxaan sidoo kale doonayaa inaan ka ciyaaro horyaalka MLS-ka Mareykanka oo marar badan aan fasax u tagay. Ilkay Gundogan ayaa Manchester City ay kala soo wareegtay naadiga Borussia Dortmund sanadkii 2016 waxaana uu ka mid ahaa xidigaha aasaaska u ahaa guulihii tababare Pep Guardiola uu gaaray intii uu tababaraha ka ahaa garoonka Etihad Stadium. dhinaca kalena waxaa markaa ka yaabin doona sababtii ay Manchester United u diiday saxiixa Thiago Alcantara 9 sano ka hor. Manchester United ayaa aad ugu dhaweyd inay qadka dhexe Thiago Alcantara la soo saxiixato suuqii xagaaga ee sanadkii 2013 ka hor inta uusan markaasi isor istaagin tababarihii la magacaabay ee David Moyes. halkii uu soo qaadan lahaa Thiago Alcantara bedelkiisa tababaraha reer Scottish ayaa la soo saxiixday qadkiisii dhexe ee Everton uu ku yaqaanay Marwan Fellaini oo noqday saxiixiisii koowaad ee garoonka Old Trafford. xidiga haatan ee Liverpool ayaa isaguna markaa ku biiray naadiga Bayern Munich ee wadanka Jarmalka oo uu si weyn ugu najaxay kuna guuleystay 7 horyaal oo Bundesliga ah iyo 1 Champions League. tababarihii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa ahaa shakhsiga abaabulay ee qorsheeyay in 17 milyan oo pound ay markaa Thiago Alcantara kaga soo qaataan Barcelona ka hor inta uusan howlgabin balse markii uu ka tagay garoonka Old Trafford ayuu go'aankaasi hor istaagay tababaraha haatan ee West Ham United oo markaa macalin looga dhigay Manchester United. sababta Moyes uu u diiday Alcantara ayaana la sheegay inay ahayd maadaama uusan wax aqoon u lahayn xidigaas. David Moyes ayaa madaxda suuqa United ay markaa u sheegeen xagaagaas inay qorsheynayaan saxiixyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Cristiano Ronaldo iyo Gareth Bale balse kuwaas qudhoodu xitaa ma dhicin. Red Devils ayaa bedelka Thiago isku dayday inay la soo saxiixato saaxiibkiisii kooxda Barcelona ee Cesc Fabregas balse taa qudheedu ma aysan suuragelin. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Everton ayaa dacwad ka gudbisay garsoorayaashii kulankii Liverpool oo ay axadii markaasi guuldarro 2-0 kala kulmeen taasoo sababtay inay u dhacaan qadka cas ee horyaalka Premier League ama halka looga laabto horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo ay halis ugu jiraan inay u laabtaan heerka labaad. Liverpool ayaa 3 dhibcood ka qaadatay Everton kadib 2 gool oo ay markaa qaybtii labaad kala dhaliyeen oo ay weliba madax ku dhaliyeen Andre Robertson iyo David Origi waxayna haddana Liverpool ay 1 dhibic markaa ka dambaysa Manchester City oo hogaaminaysa horyaalka Premier League. ciyaartan ayaa ahayd mid xiisaheedu aad u sareeyay xamaasadeeduna badnayd oo labada kooxood ee isku magaalada ka dhisani ay qarsan kari waayeen colaadda ay isku hayaan waxaana Everton ay markaasi ka gadoodsan tahay sababta loogu dhigi waayay rigooro cadaan ay ku tilmaameen markii daafaca reer Cameroon ee Joel Matip uu xerada ganaaxa ku dhex riday ninka la yiraahdo Gordon taas oo garsooraha kulankaasi dhexdhexaadinayay ee Atwell uu markaasi diiday inay rigooro tahay oo uu rigooro u dhigo. Everton ayaa dalbatay maamulka horyaalka Premier League in uu markaasi sharaxaad buuxda ka bixiyo sababta garsoorayaasha ciyaartaasi ay ugu dhigi waayeen goolkulaadkaasi ay lahaayeen. sida uu qoray wargeyska The Guardian kooxda kubadda cagta Everton ayaa qoraal rasmi ah oo ay markaasi u gudbisay maamulka horyaalka Premier League waxay kaga dalbatay in dhacdadaasi loo sharaxo iyadoo sidoo kalena horey uga dalbatay Premier League in sharaxaad laga siiyo rigooro laga diiday ciyaartii Manchester City oo ay markaasi kaga adkaatay City gool iyo eber.
markaasoo kubad ay gacanta kaga dhacday Rodri oo ka tirsan City, laakiin garsooraha uu iska indhatiray una dhigi waayay goolkulaad. Madaxa garsoorayaasha Premier League Mark Riley ayaa waqtigaasi raaligelin siiyay Everton oo uu qiray in rigoore cadaan ah laga diiday. Haatanna waxaa la sheegay in ururka garsoorayaasha ee magacooda loo soo gaabiyo BGMOL ay baaritaan ku sameynayaan arrintan. dhinaca kalena garsoorihii hore ee Premier League Mark Glattenberg ayaa dhacdadaasi sharaxay, waxaana uu sheegay in garsoore Atwell uu qaatay go'aankii saxda ahaa oo aan markaasi lagu qanci karaynin in rigoore loo dhigo ciyaaryahan Gordon. Markana kooxda Barcelona, dhowr qodob oo la xiriira kooxda Barcelona haddii aan isku duubana. Kooxda kubadda cagta Barcelona ciyaaryahan ka tirsan ayaa la soo sheegayaa in inta ka harsan xilli ciyaareedkan uu ku maqnaan doono dhaawac muruqa sida warbixinadu ay tilmaamayaan. daafaca kooxda Barcelona ee Sergio Desti ayaa inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ku maqnaan doona dhaawac muruqa sida warbixinadu ay sheegayaan. 21 sano jirkan dadabka midig ee daafaca ka ciyaara ayaa la saaray qaybtii hore kulankii guuldarada la yaab kale ay gurigooda kala kulmeen xalayto kooxda Rayo Vallecano kana tirsaneyd horyaalka La Ligaha wadanka Spain. Barcelona ayaa gurigeeda markaasi ku qaabishay guuldaradii saddexaad oo xiriir ah markii Rayo Vallecano ay xalay gool iyo eber guuldaro ah ka qaabileen. Barca ayaa xidigan da'yarka Ameerikaanka ah markaasi sheegtay in uu markaasi tijaabooyin mari doono, laakiin warar hadda la helaya waxay sheegayaan in kulamada ka haray xilli ciyaareedkan uu markaa garoomada dhaawacaasi kaga maqnaan doono. Isla Barcelona 23 sano jir ka tirsan kooxdaasi waxaa la soo sheegayaa inuu qandaraas cusub qalinka ugu duugi doono, kaas oo ku eg sanadka 2026 horraanta toddobaadka soo aadan. daafaca kooxda Barcelona ee Ronaldo Araujo ayaa markaa qarka u saaran inuu qalinka warqadda dul dhigo oo uu markaa heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxdiisa, kaasoo garoonka Camp Nou ku sii hayn doona ilaa sanadka 2026. kooxo badan oo ay ku jiraan Manchester United, Chelsea iyo PSG ayaa markaa doondoonayay saxiixa xidiga reer Uruguay ee daafaca ka ciyaara, laakiin Blaugrana ayaa u muuqatay inay ku qancisay in xidigani uu sii joogo. Jarrada Mundo Deportivo ayaana warinaysa in uu qalinka ku duugi doono oo uu ogolaaday heshiis 4 sanadooda. ugu dambeyntiina waxaa la soo sheegayaa in Pedri la'aantiis Barcelona aysan guul gaari karin sida warbixinada lagu sheegayo. Haddaba aan eegno oo aan isbarbardhig ku sameyno kulamadii uu kooxda u ciyaaray ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan 2021-2022 iyo kuwii uu seegay iyo guuldarooyinkii ay la kulmeen. Pedri iyadoo u ciyaaraya kooxda Barcelona horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan 10 guul ayay gaareen, 2 barbardhac ayay galeen, wax guuldaro ahna sooma gaarin, iyadoo Pedri uu ka maqan yahay oo uusan la jooginna xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga. Barcelona 8 guul ayay gaartay, 7 barbardhac ayay gashay, 6 kulanna waa la garaacay. Taasi waxay ka dhigan tahay in Pedri la'aantiis aysan tallaabo gedin karin kooxda Blaugrana. waxaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa wararkii ugu waaweynaa ee caawa wargeysyadu ay ka qorayeen kubadda cagta. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro, intaan muuqaal kale dib ugu kulmayna sidaas iyo nabadgelyo.